السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada saaxiibayaal meel walbood joogtaan caafimaad qab iyo nabad qab baan idin rajeynaya cid walbo dhiban oo reeqasa uga horeeyaana ilaahay dhibta ka dulqaado qof kastoo xanuunsanaya iyo qof kastoo murugaysanna ilaahay subxaanahu wa tacaala murugta iyo dhibaatada ka dulqaado ducadu waa xaggeega aamiintu waa xaggiina aqbalkuna waa xagga ilaahay waxaan kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee qisadii ninkii dhalinyarada ahaa ee reer Hargeysa ahaa qisada qaybta hore waxay noogu joogtay isagoo loo caqli celiyey oo daftiisii iyo iska soo galgalkiisii oo iska soo galay gabadha oo la soo hadlay oo iskaga nasiibsatay ee hadalku ka taraaraxay loo caqli celiyey si wanaagsan loola hadlay la dejiyey si fiican loola hadlay oo isaguna uu ku jawaabay walaalood ku mahadsan tahay hadallada wanaagsan aad igu tiri iyo sida fiican aad igu aqal celisay isaguna inta ku jawaabay ayay qaybta hore noogu joogtay qaybtan waxay noogu bilaamaysaa wuxuu yiri gabadhii markaan intaas niri ee inta igu tiri iska qiiraysiiyay waad mahadsan tahay walaal magaasaad igu aqal celisay iyo waxa markaan akhriyay ana waliba muujinaya buuri inaan ka xumahay sida daftale iyo fakadka ah ee nagu soo gabadha degdegan gabadha ugu soo dhaxdhacay iyo hadallada ay ugu tireen fahmi waayay ee faham daradana dhex martay ayay iyaduna su'aal bay weydiisay waxay ugu tiri walaal qof kasto bil aadami uu khaldamaa ilaahay ba ma khaldama ah laakiin waxa laga soo ugu fiican qofka ka soo noqda hadad khaladkaadi ka soo noqotay oo aad qiratay wax dhibi ma jirto qof fiican oo wanaagsan waa tahay laakiin walaal wali iskuma aanad kay sheegin waxaan ka codsanayaa bay tiri inaad soo kay sheegto waa su'aashi caawo dhan aan ka meerisanay markii hadalleedii dhamaysatay su'aashiina aan wali uga jawaabin ayay talay ugu cadaatay beentii inay soo afjarantay baan ogaaday buuri oo beentu raad ma labaad beentu sidii u socoto gidaar ma soo celiyay waxaan go'aansaday buuri inaan runta ku dhinto oo inantan daacadda ah ee sida fiican iyo ixtiraamaysa aan runta u sheego waxaan go'aan ku gaaray inaan runta ku dhinto oo aan gabadha runta u sheego oo beenta iyo waxa aan qarqaranayo aan joojiyo waxaan ku iri walaal telefoonkaaga garasho uma soo wicin inaan ku garanayo balse waan kugu soo nasiibsaday nasiibkayguna aduu noqday waxaan aaminsanahay in nasiibkaygu aad u fiican yahay markaan hadalka leeyahay buuri ma ogi gabadhu inay tahay gabadh madax bannaan oo aan la qabin inay guri leedahay inay xiriir leedahay inay raali ka tahay in lala xiriiro waxa oo dhan urumahayo balse hadalka aan leeyahay waa mid aan iska leeyahay oo naf aan ka dayay oo bal miciinsi gabadhaan ka dayay markii intaas afkeeda ka soo baxday ayay igu tiri walaal wad fiican tahay laakiin waxaan ku weydiinayaa maxaad ku cadaynaysaa in nasiibkaagu fiican yahay mar haddii aanad weligii arag aqoon aanad ii lahayn waxaan ahay maxaad ku kala garanaysaa ood ku cadaynaysaa in nasiibkaagu fiican yahay anigoo si taxadir la su'aasha uga jawaabaya ayaan ku iri walaal aad baan ugu rajo weynahay inaad tahay gabadh madax bannaan oo degan oo akhlaaq leh waayo qofka aana saacad ku baran sanad kuma baratid saacadda caawan kula hadlaayo waxa codkaaga iga baxay inaad qof mas'uula oo la isku halayn karata magacaagana ii sheeg adoo raaliya ayaan u raaciyay buuri intay gabadhii cabbaar xooga aamustay ayay igu tiri walaal magacaygu waa Aamina adigana magacaa kadib magacayga baan u sheegay markii aanu magacaantiis dhaafsanay buuri walina aana fikir buuxa ka haysan gabadhan Aamina waxay tahay laakiin ay wuxuun iga baxeen ayaan saacaddii eegay waaba goor dambe muddada dheer ee aanu Aamina wada hadlaynay mar kaliya ma aanan maqal buuri sanqadh iyo dhawaaq iyo hadal ka baxaya guriga ay ku nooshahay waxa aan niyadda iska weydiiyey talow inantu ma guri cidla abi ku nooshahay maxaad mar kaliya u maqal weyday cid la hadlaysa amba carruurtooda ha ahaato amba waalidkeeda ha ahaadaan
qof la hadlaya maxaad u maqli weyday waxaanan ku idhi walaal xaafadii degantay waxay igu jawaabtay waxaan deganay xaafadda Goljamo waxaan ii raacisay walaal adigu xaafadii degantay waxaan ugu jawaabay walaal xaafadda Badda Cas leedahay ayaan deganay markii aan xaafadayda u sheegay ayay igu tiri walaal maba aynu kala fogin laakiin weligii maan tegin xaafadda Badda Cas leedahay laba maalmood aan bas u raacay xaafadda Jigjiga yar ayaa farta la igu fiiqay xaafadda Badda Cas laakiin weligii aragti iska day filan kama daawo markii aamin hadalkay ugu leedahay buu ayaa niyadda iska weydiiyay su'aasha ah tolo inantu maxajabad baa aan guriga ka soo bixin laakiin ma aanan sii badbaadin sababta ay aamin u arki weyday xaafadda inta u jirta intii aan wada hadlaynay ayay saacadii gaadhay 12 habeenimo welina ma aanan gaadhin hadafkii aan lahaa ee aan telefoonkan u soo garaacay marka laga reebo inta magaceeda iyo xaafadda ay degan tahay xataa ma aanan weydiin inay xiriir ila sameysay in kale wuri hadafkii aan u soo garaacay ahaa bal gabadh caawa aad barato xiriir la sameyso ma aanan gaadhin laakiin waxaan gaadhay qayb ka mid ah oo ah gabadha magaceeda xaafadda ay degan tahay wakaas habeenka dadkii xaafadda ila deganaa buuri aad bay ila yaabeen oo telefoonkan ku hadlayo way maqlayeen walooyina codkayga iyo waxaan ku hadlay kala fahmin laakiin codka iyo guuxayga soo baxaya qolkayga ka soo baxaya way maqlayeen way la socdeen xaaladayda waxay isweydiinayeen tolow caawiyo la hadlayaa maxaa caawa kiira ku dhacay waayo leeguma aqoon oo leegama barin inaan telefoon ku sheekeeyo amba aan haasaabo amba aan habeenkii anigoo soo jeeda xilliga ku soo gaadho telefoon inaan ku sheekeeyana warkeeda ba iska daa wuxuu markaan arkay inay saacadu goor dambe tahay oo saq dhexe ay tahay oo hadafkii aan u socday iyo gabadha waxaan u soo wacayna aan fariiq ka qodnayn ayaan aamino u sheegay in iska seexato waxaan ku dhawaa walaal iska seexo waa xilli dambe aniga ayaa kula soo hadli doona mar labaad inta markii aan iri ayaan hadalkaygii ku kalsoonaan waayay kadibna waxaan u raaciyay walaal horta ma lagu heli karaa waxay igu jawaabtay waa la helayaa haddaan noolahay walaal anigoo hadalkayga ku faraxsan ayaan ku iri hay walaal aniga ayaa kula soo hadli doona iminkana waa xilli dambe iska seexo markaan intaa ku iri ayay gabadhii igu sidartay walaal weliga xilligan ma aan soo jeedin waxaan seexan jiray ugu dambeyn 8 fiidnimo intaas igu tiri anigoo aamino u muujinaya sida aan uga xumahay xilliga ay soo jeedo ayaan ku iri walaal raali ahaw waxaa soo dhiba aniga ayaa kugu wacan aad baan uga xumahay caawa inaad dartay u soo jeedo intee qosashaba ii raacisay walaal waxba iima adkaysan adigu labadeennuna waan wada hadlaynay laakiin anigu waxaan ku dheerahay waxaan toosaa marka salaad subax la adimo markaan tukado ee salaad subax iyo waajibka Ilaahay igu waajibiyay aan guto ayaan ciyalkay quraacda u sameeyaa kadibna gurigaan hagaajiyaa hooyaday baan caawiyaa markaan shaqada guriga dhameeyana madrasaddan tagaa wuxuu yiri sidaas ay igu jawaabtay gabadhii oo waxay tiri markaan subaxii kaco hooyaday baan caawiyaa ciyalkan quraac u sameeyaa markaan guriga hagaajiyo in hooyo caawiyo in hawsha dhamaystiro ayaan tagaa waxbarashadeedii oo diiniya runtii aamina waxa ay siisay faahfaahin aanay hore ii siin aniga ayaa tabcaan ahaa hurdan u baahnaa waxaana aamina mar labaad ugu celiyay inay iska seexato waxaan ku iri walaal iska seexo waa inoo habeen dambe haddii Ilaahay ka dhigo sida ay habeen wanaagsan waxay igu jawaabtay buuri hay walaal habeen wanaagsan aniga oo dhaguhu qaylanayaan ayaan tagay furaashkaygii oo aan telefoonka dhigay hore ayaan u gami waayay oo waxaan su'aalo badan iska weydiiyay hadalladii ixtiraamka lahaa ee aamina ii muujisay runtii waxay ahayd aamina gabadh 18 jir ah oo da'yar oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala san xagga dambe ka ogaanay buuri qurux iyo dabeecad wanaagsan Ilaahay ku manaystay aamina waxay ahayd buuri inaan xishood badan oo aan gurigooda ka soo bixin marka laga reebo xilliyada ay ku maqantay waxbarashada aamina weligeed nin afka uma kala qaadin sheekana hadalkeeda daa
waxay ahayd inan diin leh oo dadnimo leh. waxay wax ka baran jirtay buuri mid ka mid a macaahidda iyo goobaha diinta lagu barto ee ugu waaweyn magaalada Hargeysa. waxay baran jirtay culumta diiniga iyo sayniska oo dhammaantood ay ku qaadan jirtay luqadda afka Carabiga. waxay Aamina ahayd inan dadaal badan, waxbana uguma dhaxayn jirin gurigooda iyo waxbarashadooda. gabadh ku eeg bay ahayd waxbarashada iyo gurigooda inta u dhaxaysa oo aan meel dhexe ku mashquulin bay ahayd. waxaan Aamina ogaaday buuri inay ahayd gabadh aqoon ah oo aan aabbe lahayn oo reer u weyn oo curad ah. waxay ka soo jeeday buuri reer qoys dabaqadda dhexe ah oo aan faqiirin iyo sabool danyar aan ahayn, dad aad u taajirin aan ahayn, laakiin nolosha dhexe ah, dabaqadda dhexe waana dabaqadda ugu fiican wey. Aamina waxay ku nooleed buuri nolol raaxo leh, halkan anigu ahaa buuri qof aad u sabool ah oo aan waxba haysan oo ka soo jeeda qoys danyar oo sabool ah. Aamina waxay ahayd inan reerkoodu ku indhakuushaan. waxay ahayd inan dheer oo qurux badan, jidhkeegu buuxo isku dheelitiran yahay, kaale arag ah, quruxdeeda iyo dadnimadeeda wanaagsan. ku darso Aamina waxay ka soo jeeday qoys diin leh oo dad culamo ah ayaa dhalay. balse anigu waxaasoo dhan maan ogeyn buuri. habeenkii labaad ayaan Aamina xilligii aanu ballanay telefoonka ka wacay. kalsooni saa u weyn kuma qabin oo waxaan islahaa buuri qof kale ayaa kaa qaban kara. waa xilligii leen ku socon jiray ee telefoonnadan gacantu aanay soo bixin. markaa waxaan islahaa buuri telefoonka markaad wacdo waxaa laga yaabaa qof kale oo reerka ka midii inuu kaa qabto. telefoonkii baan wacay, 2 jeer ayuu dhacay. markuu 2 jeer dhacay ayay Aamina iga qabatay. assalaamu calaykum baan ku bilaabay buuri. wacalaykum assalaam ayay igu jawaabtay. ciddii la hadlaysana waa Aamina. markii aanu is salaanay buuri ayaan ku uri walaal waa inankii hebele ee xalay wada hadlayseeni ma fiican tahay sidee tahay? waxaan igu jawaabtay walaal waan fiicanahay laakiin caawa aad baad u wanaagsan tahay. anigoo hadalkeeda ka jawaabayo ku faraxsan baan ku uri oo waayo walaal maxaan caawa ku fiicanahay? iyadoo qoslaysa igu jawaabtay xalay toolay adoon salaanta islaamka igu salaamin ayuun baad daf isoo tiri, hadalun baad igu bilowday, laakiin caawa si qurux badan ayaad ii salaantay. markaasaan ku uri walaal taladaadii wanaagsaneed ayaan qaatay. markaas igu jawaabtay walaal wiil wanaagsan baa tahay haddii taladeed qaadatay. intaa markaanu isdhaafsanay ee hadalladaasina dhex mareen, anigu caawa go'aankan soo qaatay wax weeyaan buuri inaan bal arrimihii aan u socday caawa guul ka soo hooyo oo gabadhaasi barto reerkooda, iyada nolosheeda, in xiriir leedahay, inaan xiriir la samayn karo, waxaasoo dhan. aduu nin dee hasaawadoon ah oo dee gabadh raadinayay wuxuu u socon lahaa ayaan caawa rabaa inaan soo xaqiijiyo buuri. intaa markaan gabadha isku turtuurnay ee hadafkayguna noocaa yahay ayaan cabbaar siira kaftanay oo xoogaa kaftan baana dhex maray. intaas kadib waxay Aamina iga warrantay inay xaafadda kula nooshahay hooyadeed iyo carruur ay walaal yihiin. sidoo kalena waxay ii sheegtay buuri inay tahay gabadh agoona oo curada. sidoo kale Aamina waxay ii sheegtay buuri inay degan yihiin guri aad u weyn oo ilaa iyo 18 qol meelaha ka kooban. sidoo kale waxay la noolad oo ii sheegtay inay la nooshahay ayeeyadeed hooyo inay la degan tahay guriga. guriga ay ku nool yihiin waa guri waasic ah oo aan cidhiidhi hayn oo qof walba qol gaar iska degan yahay. Aamina iyadu waxay lahayd qol gooni u ah oo gaar ah oo ay hagaajisatay oo qurxisatay. dumarkana waa taqaanaa, rag iyo dumar isku mid maaha. guriga hadday dumar degan yihiin shacnigiisa iyo quruxdiisa iyo udgoonka inay meeshan dumar galaan waa laga dareemaya. laakiin ragga qolka ay degan yihiin eena dumar la deganin ama iskaabulo qof dhalinyaro oo doobi degan yahay, bacbu iska soo qaadan iska iska tuuraya, caanu soo qaada halkaas iska tuuraya, caagad soo qaada iska tuuraya. waxa laga yaabaa inaanu hagaajinba oo fiiqinba amba aanu dee xaaqinba oo khashinka iyo unu bixinba xataa dharkiisa iska dhex yaala xataa.
laakiin dumarka maxaa lagu yaqaanaa meesha dumar joogaan nadaafad baa ka agdhow oo nadaafad baa leedahay oo udgoon baa ka baxaya oo dumarku waa nolosha ugu wanaagsan haddii Ilaahay keeno wey gabadhaas sidii gabdhaha lagu yaqaanay gurigeedu way hagaajisay oo way qurxisatay oo qolkeedaasi waxaan ku kaala arag cajiib waxaana ka ilaalisay carruurta yaryar inay soo galaan waxay ii sheegtay buuri gabadha waliba inay 18 jir tahay gabadha yar weeyaan gurigaasi iyadii asxaabteeda ay isku macadka yihiin mooyaane cid kale ma soo dhex gasho waxay raacisay walaal waxaan haystay 18 jir carruurteedana ugu weyn hooyaday iyo walaalaha ayaan la noolahay macadiinayaan dhigtaa sidaasaan wax u bartaa ayay ku tiri bal qaybta saddexaad la soco iyo waxa dhex mari doona iyo halkay wax mari doonaan intaan qaybta saddexaad ku kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh